عمرنا حياك القاعد مريض جواتي علمي وخير محمود جاهل كوكبي magacayga waa Salaad Maxamed Shardi naanisteedana waa derbi la yiraahdaa derbi ardaynimada la ii bixiyay macalinka ii bixiyay xoogaa waa dhigadaga yuru cankan dagaal meeran waaye marka derbi waaye derbiga ayaa hadal badan gali maayo saas ee darinto saas derbiga ugu baxday taas waa sidaas fankana waxaan bilaabay 63 markaas iljoonka leegado kala laga hees jiray meelahaas laakiin 64 ayaan si buuxda u bilaabay inaan heeso waxa kamid heesii waagaas ila dadaal heestii وبحد الله يومنا لدين كريني وبحد الله يومنا لدين كريني إلى الدلال إلى الدلال سنت خيب وخير إلى الدلال كور بعض المرين هيسيسو عود يرير إلى ما استعدتون جركي لكن لازم أفرتي أيام سفي عن وبالله إن راضيها كيسو إما أبيدي وحالاي أحدكم عيارو إما أبيدي وحالاي إلهي سميرو ودن كان صوماليا أرتا ودن أنا جعلها واي لكن مركي أن كتجي ظروف أي ودي وأمان أيان هلي واي أنا مقالدي زي حمر تاي بيشنسان كجري كلون كأي أرجوستان لو في جري ديدنا مركي دمبه واحد عادي إن الوزير إيش قبتين قلم موريان وزير كين لحري يقولون بعقود ذيين ماشي حمروني لا كفانا تناله قشن كي لقاضي يا يونسون طلع لوجا قاضناي قشن كي أيام مركي أو سعودي أرجو كنتراتا سوقات وزير كاس أيام اللي يري وحن كاربنا إن بحنا سيسو وبلغ قاضي وحيري واندسينا يا لكن العقد هله بالدور سرد جوارد قشن كثرة إذا حتى وننا سيدي بيسميين دنا العقد ولا جوي markii dambe habeen otom maartay 1997 in markaas aniga aan soo maray safaarada hore Mareykanka Shangani in halkaas lagu qabtay 40 maalmood meesha ku xiraa Ali Mahdi iyo Hussein Aidiid ayaa markaas dhinacan ka ah madax Southka dhinacaas Northkana Ali Mahdi kullee ahaa dadna markii aan ka soo baxay meeshii oo Hussein Aidiid ay yimiday nimankii ana waxaan siinayay yiri wuu ka soo daayay ninkii wasiirka ahaa dadna aniga asaga leeyay wuxuu dhahay abti mar dambe dhinacaas aadin waa dhinacaas dibushiiskayga ku dhisanay ilaa cadale iyo buucay bashaqle ilaa xalalagtida ayaa laga keenaa kalluunka iyo aragoosta aniga dhinacaas waa aadaya cid wixii ka yeelaysaana ma jirto kuwii aniga aan adeerku ah qaar kamid ah ayaa xabada ii qaato maxaa yeelay idaacadda mar walba waxaan leeyahay aniga aan qofna leeyahay iska soo bixi doonaa anigu sidaas dhibkaasaan galay calaa kulli xaal maalintaasaan goostay inaan waddanka ka baxo businesskaygiina nina walaalnaan uga tegey oo degmada xamarweyne ku yeelay baddow saaraa hadda wixii oo dhan waaba iga halaabeen adigoo Etoobiyaan ka baxay dowladda Etoobiya baasboor ay siisay magacayga waa ku maadsanaayeen markaas adigu sidaasaan ku tagay Soomaali baasboor ma lahayn markaas laakiin wasiirka arrimaha dibadda la kulmay oo Hayuu Masfin baasboorkii wuxuu dalkiisa uu kamid yahay dalka Itoobiya ha looga soo qaado meel birqad leeyahay laga soo qaado adigu gobolka kamid ah mustabaqada baa la yiraahdo oo taasir camala sidaas ayaan maartay baasboorka ku qaatay kadibna waan dhoofay ilaa Italian ku tagay
adigu hadda waan soo noqday waxaan ku soo noqday runtii si ay tahayna hadda ilaaha og soo noqoshadaydii markaan waddankaan imiday runtii waa lay soo dhoweeyey fanaaniinta ama dalkaba waa laygu soo dhoweeyey sababtaan u imidna waxay ahayd waxaan arkay tiyaatarkii oo brime ministerka iyo madaxweynuhu ay dib u dhisayaan oo ay leeyihiin haye war waxaan badhahay noloshii oo fanka wayba bilaabatayba haddii tiyaatarkii loo dhisaayo golihii waan ku soo geesigaroobay runtii anigana in meeshii aan markaas aan maaragtay wax ku samayn jiray inaan helo ayaan rajaynayey marka hadda brime ministerka aan qaabilay farmaajo ma aanan arkin ilaa hadda laakiin brime ministerkaan arkay wuu i soo dhoweeyey wuxuu dhahay ninka yariisow la yidhaahdo gobernarka isaga ayaa maxaa tidhaahdaa hadda qolan uu jiraa ee markuu ka soo noqdo warqadaha ii dhaaf waa lagu saxeexa waa lagu siinayaa waa lagu soo dhoweynayaa runtii adigu 15 bir kadib yariisow waan u tegey yariisow wuxuu dhahay waxaa kuu ran cadale iyo meesha la yidhaahdo warshiiq inaad meel wartana aba lacagteedii oo dhan iga gashaye oo aan 20 sano ka badan haystay oo noloshaas ku shaqaysiga sida aad u bixideen hoteelada ama meelaha qaarkood maxaa tidhahdaa ma laysiiyo oo lagu siiyo laga kireeyo ama maxaa tidhahdaa ku dhaqan sida aad ku bixiseen hoteelada wax walbaba wallaahi hadda guddi baa loo baxshay war waxaan dhahay wiilashii ay sheegayoo in dowladda xasan sheekh 6 milyan oo lacaga maxaa tidhahdaa aad inuu ku gato oo damcay deedna ay wiilashii ka hor istaageen oo dhan meeshaan waa ku dagaalamaynaa haddii aad waxaas noo keentiin ma taasaad wadaan niyo yariisow waxaas maya guddi cusub hadda loo bixiyey oo maxaa tidhahdaa dowladda in dhulalkii dowladdii wixii la baaro salaada waxaasaa socdee haddii aad rabto cadaloo kale war aniga hadda cadal ma gaaree meeshaan xoolahey dhaniga galeen haddii soomaalinima jirto haddii kalena waan iska noqonaya maraykankaa iskaga noqonao saas ku dhammaato kan dambe oo yimaada ayaan maaragtay u imaan doonaa saas maahan aniyo adu kolley farmaajihii waan la ahay laakiin hadda waxay leeyihin waa haddaa lagu tusayaa isaga haddaan arkan u sheegi doonaa maaragtay wixii jira ama de wuxuu noqonayaa qoladaas lacagta qaadanaya badda gadanaya oo kale ama waxbuu ka qaban doonaa arrimahaas fanku wallaahi anigu ra'yigaan qabo nimanka hadda dhallinyarada fanka wadaa anigu raacsanay sababtoo ah meesha cid layba noqon lahayd haddaan la helinba halkan organka 10 qof waxay tumi lahayd uu tumayaa organka horta easy waxay noqdeen adigu qaar fiican way ku jiraan oo aad u dadaalaya qaar dhexe way ku jiraan qaar maaragtay iska boodbooda way jiraan hadda sheeshan suuradii ma jirto nin walba wuxuu rabo sheegayaa intaasina way maqan tahay haddii adigu waddanka hadda tiyaatarkii baa la dhisayaa markaas waxay noqonaysaa in la tartamo fankii lagu tartamo haddii tiyaatarka la furo in maaragtay lagu tartamay noqonaysaa shansuurana way imaan doontaa hadda dowlad dhan iyo dal dhan oo burburay waad garan kartaa siduu ku soo kabtaay waa muddo cishadaynu kulanaa cidhka roobka daayo cawadhalad inaad tahay cindigayga keli wali canab laamoodi qabriga jacaylkaysu ku jira Nilis Furniture Design waxaan xilligan bisha tan Abriil idin haynaa alaab cusub oo casri ah oo aad isticmaali kartaan siyaabo kala duwan sida sariirta Allora Vera iyo joodarigeeda 45 pound bishii kaliya yes 45 pound bishii kaliya